in ugu horreyn adoo magacaa ku bilaabay kusoo dhawow barnaamijka maxaad hibo leedahay waan ku dhaway magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed hibadeydu waxa weeyaan wax aad u weyn maaha laakiin waa dhagahaas oo la laabay ilaahay baana ii sameeyay balse Soomaalidu waxaan leeyahay asku dayeen wiligiin meel aad joogtaan walaalkaaga ku dayeen taa ku tuso hibadeyda waa dhigtaas bartaa la gelinayaa bartaa takalla waa la mid wakaa in goormad ogaatay inaad hibadan leedahay aad isku ogaatay wallaahi waxaan isku ogaaday horta anigoo 12 jira anigoo markaa galaaska shanaad ku jira galaaska shanaad anoo ku jira ayaan soo ogaaday inaad hibadan leeyahay in mahidaad u leedahay mise waa waxaad isku aragtay nadu ma wallaahi waxaan isku arkaa laakiin wax hido aan u leeyahay maaha laakiin waxaan isku arkay wadnaasanta adoo magacaa ku bilaabay kusoo dhawow barnaamijka maxaad hibo leedahay magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Aadan Xuseen waxaan hibo u leeyahay makaanagu shaxdan lagu ciyaaro dhulka ee waliba mid la yiraahdo 12 mid lagu ciyaaro la yiraahdo Koraanboot laga soo bilaabo 8 kii laga soo bilaabo ilaa imka la joogo 2018 aan mar qura laga badin cid walibana ay timi aan islay baasha hibaad u leedahay 20 sano xidhiidha inteen leeg baad aba goormaad isku dayday inaan cid baka badan karin aad ogaatay waxaan ogaaday markii ugu horeysay anigu aan bahasha bartay 8 kii waan yaraa marka halka xaraqaad ayaa bariga chat lagu soo rogi jiray marka halkaas aan neeyay jiray marka nimanku ciyaaraya ayaan anigu ka bartay imanka ninkii bariga aan ka bartay wuxuu saldhiga dhaxay askari ka yahay ninkii aniga bariga aniga markaa ay barbaray isagii laftiisa dib baan uga badiyay marka isagiiba aniga ii saxiixay in bahashan waan kala wareegay isagii ku baray baad adiga ka badisay anigu aan ka badiyay isagaana ii saxiixay inaan kala wareegay marka deyn badan aan ka badiyay 20 ka sano xiriira cid walba la soo ciyaartay ilaa hadda cid iga badisay ma jirto ayo maasanta in ugu horreyn adoo magacaa ku bilaabay kusoo dhawow barnaamijka maxaad hibo u leedahay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وكفى مقعيق واسمان عوي الدعالة اسمها شرقاوي وحن برنامجك وتاجيري يا رتا marka hore si dadban iyo si toos ah maadaama barnaamijku yahay maxaad hibo u leedahay adigu shakhsiyan maxaad is oran kartaa hibaad u leedahay anigu shakhsiyan waxaan oran karaa hibaan u leeyahay in kastoo Soomaalidu ay tiraahdo nin isfaanay waa riis nuugtay oo ay qurux badnayd inaanan anigu sheegin ee ay ku fiicantay markuu qof kale sheego anigu hal abuurka ayaan oran karaa hibaan u leeyahay gaar ahaan hal abuurka suugaanta goormaad ogaatay inaad wax abuuri karto amba aad wixii ugu horeeyay ka samaysay goormeed waqti meed goortan ogaaday inaan wax hal abuuri karo ama aan suugaan hal abuur hibo u leeyahay ma dhaweyn hadeer ilaa muddo 2 sano ah ayaa ka soo wareegtay maalintan maansadii ugu horeeyay sameeyeen waxay ahayd muddaha 2 sano laga joogo oo maansadaas aan oran karo may qurux badnayn oo kuwan dambe ama maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii wanaagsaneeyay balse maan helin meel iga kafaala qaada iyo cid soo dhaweysa hankayga iyo hal abuurkayga laakiin anigu maan niyad jabin oo waayo waxaan ogahay in aniga waxan ay maskaxdayda ku keydsayin markii aan doono aan adeegsan karo markii aan doonana aan haysan karo ma hibad u leedahay mise waxaad hiddo u leedihiin ba mise waxaad adigu kaliga u gaar ah ma oran karo waa waxaan hiddo u leenahay because of aniga aabahay mu gabi jirin hooyadeyna may gabi jirin awowgeyna mu gabi jirin marka waxaan anigu shakhsiyan aan isku arkay hay aad bad maasanta